maayirkii hore ee degmada Xudun ee gobolka Sool Maxamed Jaamac Xirsi ayaa ka soo goostay maamulka Somaliland waxaana si weyn loogu soo dhaweeyay waqooyiga magaalada Lafweyne soo dhaweyntiisana waxaa ka qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada kuwaas oo ruuxayay calanka SSC Khaatumo iyo calanka shanta Soomaaliyeed maayirka ayaa sheegay inuu la dareen yahay dadkiisa sidoo kale odayaasha magaaladaasi ayaa bogaadiyay go'aanka geesinimada leh uu qaatay waxaana hadalladooda ka mid ah sidatan aad iyo aad baan u salaamayaa dhammaan dadweynaha hablaha odayada cawqaasha deegaanka maaragtay Lafweyne ee soo dhaweeyay Maxamed Jaamac Xirsi oo ah maayirkii hore ee degmada Xudun aad baan u soo dhaweynaynaa wuxuu ajiibay baaqi ay u jeediyeen gudida 3 ay inta hadhayna u jeediyeen inay soo goostaan degmooyinka Xudun kala baydh dhulkaas oo dhan buu ajiibay isaga iyo Mukhtaar Muuse Cabdalle oo ah isna maxay ahayd xubnihii golaha deegaanka ayaanu halkan maanta ku soo dhaweynaynaa aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa Master Guray oo runtii soo dhaweyn caqiiba leh maaragtay loogu soo baxay deegaanka Lafweyne aad baan u soo dhaweynaynaa Guray dhammaantiinna waxaan idin leenahay waad mahadsantihiin ajiibkii uu ajiibay maaragtay gudidii 3 ragga halkaa ku hadhayna waxaanu leenahay war nin walowba sidaa yeel isaaq ha qancinine dadkiina qanciya waxaad qancisaan SSC qanciya caruurtiina iyo wiilashiina iyo gabdhihiina iyo odayadiina iyo dhammaan dadka madaafiicda lala dhacayo u hiliya sida Cabdirasaaq Khaliif iyo maxay ahayd ninkii la oran jiray hogaankii ciidanka maxay ahayd Saleebaan Barre oo isaguna laba nin oo waaweyn oo ka soo goostay Gurayna waa soo raacay aad baan idin salaameynaa Mukhtaarna waa raacay dhammaantii waa idin soo dhaweynaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad baan idin salaamayaa bulshada reer Lafweyne waxaanu halka ku soo dhaweynaynaa maayirkii hore ee degmada Xudun Maxamed Jaamac Xirsi Oogle oo loo yaqaan Guray wuxuu ajiibay baaqi isimada iyo talaqabeenka gobolada SSC iyo gudida buu ajiibay hadda markaanu soo dhaweynay waxay soo garaaciyay maayirkii Taleex war Guray ma haysaa buu igu yiri waxaan ku yiri adeernimay ku hadhaa hawle haysaa nimay ku hadhaa hawle haysaa iyaguna waa imanayaan insha Allah muddadii la idin qabtay intaana idinka dhammaan soo galabaanu leenahay waxaan kaloo halkan baaq uga jeedinayaa oo aan indhaway igu jirtay inaan idhaahdo oo aan TV waayay isimada iyo gudida 3 kelmadda aan leeyahay codsi weeye Cabdirasaaq Khaliif hana looga dhigo madaxweynaha Khaatumo ilaah baan idinku dhaarshay Cabdirasaaq Khaliif hana looga dhigo madaxweynaha Khaatumo hana looga dhigo yaan loo eegin iyagu u shaqayn jiray shuruudihii lagu xidhay 45 isaga yaan loo eegin baan idin leeyahay Guray oo soo dhawow gacmo furan ku soo dhawow isimadii iyo gudidii baa ku sugaysa Xudun baa laga sugayaa degaankii ballaadhnaa aad u talin jirtay baa laga sugayaa nin xilkii laga qaadayaa ma jiro inta dawlad ballaadhan inoo dhalanayso nin waliba wuxuu ahaa buu ahaanaya kii xildhibaan golo degaan ahaa kii maayar ahaa intaas uu ahaanaya nin walba sidaa ku biyaab salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وعليكم ورحمة الله وبركاته وقفل بوحن كو سلام يا مقان كيسا halkan waxaan ku soo dhaweynaa maayirkii hore Maxamed Jaamac Xirsi in yar baan uga faa'iideysanayaa dadku waxay yiraahdaan anigu 6 bilood waxaan ahaa jamaahirtan kamid ahaa waxay isbaad casirin maanta runta idin sheegaya aw nimanka waxba nagama dhaxeeyaan waxaan ahay oday jamaahira oo kamid ah odayaasha degmada Xudun markii horena waxaan ahaa xildhibaan aad gacmihiina idinku ku doorateen ما هين يجون إلى كنسدين شخصياتنا عاديات بني السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. ما أنت وحنسود وين محمد جامع حرسي أوغلي ما يركي هراء دماغ حضن حدنا إسقى ما يركيه فرمنا وإسقى إن لقى قاضي كلا لقى قاضي يوم ولا منه عاديات بنسود وين وننا إسكاجيني كسر العقاقي تبكي شويني والسلامنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. أجهرين وحمد إسكاله إلهي عز وجل ها إن أبوري بمحد إسكاله
mahadda labaad waxaa iska leh dadka reer Lafweyne ee sida fiican ee milgada leh iigu soo dhaweeyay magaalada Lafweyne aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa ilaahay baa mahad iska leh soo dhaweyn aad u qiimo badan baa nala ku soo dhaweeyay waa uga mahad celinaynaa wixii wara waxay la tahay waqtigu waa kulul yahay waa 12 bay ku dhowdahay iyadu wixii iswaraysihi waa inoo fadhibay inoo ahaanaysa haddii Allah uu idinka ka dhigo waxaan ka mahadnaqayaa soo dhaweynta ballaaran ay noo sameeyeen dadka ku nool degmada Xudun gaar ahaan Lafweyne Xudunna waa noo dambaysaa waa tagaynaa insha Allah bismillahil kariim hadda wixii wada hadalay Xudun iyo Laascaanood bay noqonayaan haddii Allah idinka ka dhigo xaqiiqiyan warkii ay soo saareen gudida 33 aad baan ugu diirsanay awal maanaan kala maqnayn waxaan u kala maqnayn dadka waan u maqnayn kamaanaan iyaga kumaanaan maqnayn laakiin waan u maqnayn taas waxay noqonaysaa insha Allah waxay noqonaysaa wixii xoga oo aanu hayno fadhigeeda iyo maqaamkeeda baanu la sugaynaa soo dhaweynta reer Lafweyne soo dhaweeyayna aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh sidoo kale maayirka ayaa loo galbinayaa degmada Xudun ee gobolka Sool halkaas ayana ka socoto munaasabad soo dhaweyna waanigu Maxamed Maxamed Cawiil kawte degmada Xudun ee gobolka Sool